waxaa maanta magaalada Wajeer lagu soo gabagabeeyay tartankii kubadda cagta oo ay ku tartamayeen ardayda dugsiyada sare ee gobolka Waqooyi Bari dalkani Kenya. ciyaarta kama dambaysta ah ama finaalka ayaa waxaa isku soo haray dugsiga Axmed Liibaan iyo dugsiga Qorof Xaraar. guushana waxay raacday Qorof Xaraar. ciyaartan oo lagu qabtay garoonka dugsiga hoose Joqbaaru ayaa waxaa ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay wakiilka golaha hoose ee deegaanka Qorof Xaraar Maxamed Salaad Ibraahim. maamulaha dugsiga sare ee wiilasha Qorof Xaraar ayaa isaguna dareenkiisa nala wadaagay. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ani waxaa la yiraahdaa Macalin Haruun Hilow. aad baan u faraxsanahay guusha ay ilmaha ardayda ay ku guuleysteen koobka North Eastern Region oo kubadda cagta. waxaa kaloo diraa hambalya aad ah ardaydii looga guuleystay oo Axmed Liibaan oo ayagana ahaa ardayda hore oo macallinkooda ahaa oo mar walba la jiri ayagana waxaan leeyahay sanadkaas leedihiin sanadka dambe insha Allah idinkana waan rajaynaynaa inaad sida camal ku guuleystiin. intaas kadib waxaan u sheegaa dadweynaha iyo waalidiinta ardayda ilmaha iskuulaha ku jira waxaan u sheegaa faa'iidada ay leedahay ciyaaraha iyo ama sportka. waxaa looga talagalay ciyaaraha inay isu keenaan dadka wada jecel ay ciyaarta muujiso dadka isu keento. midda kale dadkii ciyaara badi muqadaraadka iyo waxyaalaha xun ambeeraha dadka ka reebo. waxaan leeyahay waalidiinta in lagu caawiyo oo lagu saacideeyo oo lagu gacansiiyo ardayda iyo iskuulaha markii macallimiinta codsadaan in ilmaha sport loo diro waalidiinta caqabeeyo oo ka hor imaada. waxaan u sheegaynaa in gacan lagu siiyaal rabaa meelaha lagu horumar hadda bariyahan oo nolosha wax isu bedeshay dadka hadda ugu maaliyada badan oo adduunyaha uga lacag badan ama uga taajirsan waxa waaye waa ciyaartooyda. mar dhinacaas wayna iska warqabtiin. wakiilka deegaanka Qorof Xaraar ayaa soo dhaweeyay guusha ardayda dugsiga sare ee Qorof Xaraar ay gaareen. aniga waa MC-ga laga soo doortay Qorof Xaraar ward magaciigana Maxamed Salaad Ibraahim oo matalahay halkan sports education committee ku matalahay maanta. aad baan maartay jawigeyga iyo farxadeyda mid la soo koobi karmeehin insha Allah midaan oo Northeastern hadda aan ku guuleysanay mid daman oo nationalka oo ma wadanka dhamaalan waan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono insha Allah. Qorof Xaraar hambalyo. ugu dambeyn ciyaartooyda Qorof Xaraar ayaa dareenkooda sida tan u dhigeen. معي وسكري عبد القادر الحمد لله. This was a long journey الحمد لله. سافرتين عكسو بلاد from group stage up to the final up to the region up to Kakamega. ودريم أنا كأنه هاي هم وين لنا الحمد لله final we made it and إن شاء الله إن كابسو على رجلنا إن شاء الله for the first time history. حسين يالدا وكفر حسن عايزين أن champion كنا قني مهدعلين وين فانسك يو دت كنا تغييرين أنو علينا الحمد لله لي مرلات مد national كانت تنتكون أكسن أيان كرجينينا بين الله يكرم إن شاء الله.